soo dhawaada daawadayaal waxaan idin la wadaagi doonaa howlgalo culus oo caawa ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe qaybo ka mid ah gobolkaasi maanta waxaa ka dhacay duqeymo culus oo ay fuliyeen ciidamada cirka ah jabkii ugu cuslaa oo kooxda argagixisada al-shabaab lagu gaarsiiyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Guulane muuqaalkan ayaa idin kula wadaagi doonaa weerarkii ugu dambeeyay howlgalada culus ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka kuwaas oo lagu ciribtirayo kooxda argagixisada al-shabaab balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto sina share gareyso naguna soo biirto mahadsanid sidoo kale qaybta YouTube-ka haddii aad naga daawanayso waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto saaxiibadaadana aad la wadaagto intoo muuqaalkan socdo sidoo kale waxaad daawan doontaa muuqaal dareen hadlaya kaas oo ka imaaday furmaha dagaalka muxuu yahay muuqaalkaasi sidoo kale waa daawan doontaan aynu ku bilowno gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa caawa ka socda howlgalo ka dhan ah kooxda argagixisada al-shabaab kuwaas oo ay iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah howlgalkii ugu horeeyay galabta waxa uu ka dhacay deegaanka Guulane ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo lagu duqeeyay kooxda argagixisada al-shabaab diyaaradaha cirka ayaa ka warhelay goob ay isku aruursanayeen kooxda argagixisada al-shabaab waxaana lagu duqeeyay halkaasi gaadiid ay saarnaayeen sidoo kale ayaa halkaasi lagu gubay horjoogayaal sarsare ayaa lagu xasuuqay goobta ay duqeynta ka dhacday maanta gaar ahaan deegaankaasi sidoo kale howlgalo culus oo caawa ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa ka socda qaybo ka mid ah deegaanadii maanta la duqeeyay gaar ahaan deegaanka Guulane firxadka kooxda argagixisada al-shabaab ayaa weli caawa lagu baacsanayaa gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo maalmihii ugu dambeeyay kooxda ay wajahayaan culeysyo adag ee kaga imaanaya ciidamada xoogga dalka iyo geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka oo isaababay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer tagay furmaha dagaalka si uu u dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee isku abaabulay inay iska xoreeyaan kooxda argagixisada al-shabaab furmaha dagaalka waxaa ka yimaada muuqaal dareen hadlaya kaas oo muujinaya fikirka kooxda argagixisada al-shabaab sida looga soo howada horjeestay maxaa cali caqiidada baro culimadu diiday maxaa curaha loo wada jaraa caadil iyo maato maxaa calan madow sharciga caarad uga yeelay maxaa curuntintaan looga dhiga lagu cibaadaystay maxaa caasidiin soo baro culimadu diiday ununkay cadkaan meehayaal cuni lahaayeen cadowgii dilaa calan wada cali ibniin daalibe